Weligaa ma isweydiisay wax dhacaya markaad riixdo badhanka koolka ee taleefankaaga? Ilbiriqsiyo gudahood, xaguu aado codkaaga, sideese u gaaraa qof boqolaal mise kumanaan kiiloomitir adiga ka fog? Maxay yihiin biraha dhaadheer oo aad ku aragto meel kaste? Ma isku qancisay inay koronto siiyaan magaalooyinka mise ay qabtaan shaqooyin kale? Lacagta aad ku shubto simikaarka si aad wicitaano u samayso yaa qaata? Maxaase dhaca haddii aadan credit card-ka mise kaarka lacagta aadan ku shubin? Maanta waxaan si fudud u sharxi doonaa sirta ka dambeysa wicitaanka taleefannada shirkadaha isgaarsiinta iyo sida codkaagu u safro ilbiriqsiyo gudahooda. Haddii aad rabto inaad fahanto taleefannada iyo sida dhab ahaantii u shaqeeyaan, daawo muuqaalkan ilaa dhammaadka. Aan bilowno. Bal qiyaas inaad rabto inaad wacdo saaxiibka kaa fog. Waxaad raadisay nambarkiisa, waxaad riixday badhanka koolka, laakiin codkaaga si toos ah uma gaarayo. Marka hore, makarafoonka taleefankaaga ayaa codkaaga wuxuu u beddelayaa calaamado dijitaal ah. Calaamadahaas waxaa loo diraa tower-ka. Tower-kuna waxa weeye birihii dhaadheer oo haddeertan aan ka soo hadlaynay. Shaqadoodana waxa weeye isticmaalayaasha tiknoolajiyadda internetka amase taleefannada inay signal-ka ka qaadaan amase u keenaan markii iyaga la soo waco, oo ayna ka qaadaan markii ay iyaga qof kale u baahan yihiin. Calaamadahaasi waxaa loo diraa tower-rada hadda aan soo sharaxnay. Tower-kuna waxa uu eegaa yaa la wacaya, kadib wuxuu u gudbiyaa shirkadda isgaarsiinta. Shirkadduna waxay raadisaa meesha qofka joogo. Haddii uu dhow yahay, calaamadahaasi si toos ayaa loogu diraa. Haddii uu fog yahayse, calaamadahaas waxaa la marin karaa tower-ro kale, fiilooyinka fiber optic-ka amba xitaa dayax-gacmeedyo ilaa uu gaaro qofka taleefanka haysta. Dhammaantood waxay dhacaan ilbiriqsiyo yar gudahooda. Haddaba su'aasha kale, haddii taleefanku uu shaqeynayo, maxaa looga baahan yahay inaan bixino lacagta simikaarka ama ku hadalka? Yaase qaata? Jawaabtu waa shirkadda isgaarsiinta waxay leedahay kumanaan tower, fiilooyin, xarumo, kombiyuutarro waaweyn iyo shaqaale xogtaas u dayactirta. Lacagta aad bixiso waxay ka caawinaysaa shirkadda inay bixiso adeegyadaas. Haddii lacagtu dhammaato, shirkaddu waxay joojinaysaa wicitaankaagii ilaa mar kale aad lacag ku shubato. Laakiin safarka codkaaga halkaasi kuma eka. Marka calaamadaha gaaraan taleefanka qofka aad wacayso, taleefankiisa wuxuu dib ugu beddelayaa calaamado cod ah oo aad maqli karto. Markaas ayuu taleefanka bilaabaa inuu qaracmo ama soo waco amba uu yeero codka ugu xiran markii la soo waco. Marka qofkaasi uu qabto, xiriirka labada taleefan ayaa furma, waxaana bilowma wada hadal. Waxaa laga yaabaa inaad is leedahay sidee arrinkaasi u dhici karaa ilbiriqsiyo gudahooda. Sababtoo ah shirkadda isgaarsiinta waxay leedahay shabakad aad u weyn oo ka kooban tower-ro, fiilooyin fiber optic-ga, xarumo xogeed data center, iyo kombiyuutarro awood badan oo si joogto ah u shaqeeya. SIM-kaaga ma kaydiyo oo keliya nambarkaaga, waxa uu leeyahay aqoonsiyo u gaar ah oo uu sheego shirkaddaada qofka aad tahay. Marka aad taleefanka shido, wuxuu isku diiwaangeliyaa tower-ka ugu dhow. Laakiin su'aal kale ayaa jirta. Maxaa dhacaya haddii aad saaran tahay baabuur mise aad socoto adigoo taleefanka ku hadlaya? Muxuu wicitaanka u go'i waayaa? Jawaabtu waa tan. Markaad ka sii fogaato hal tower, taleefankaaga waxaa si joogto ah u cabbirayaa calaamadda. Haddii uu helo tower kale oo calaamadiisu ka fiican tahay, shirkaddaadu waxay si degdeg ah ugu wareejisaa koolkaaga tower cusub. Habkan waxaa loo yaqaannaa hand over mise hand off. Waxaasoo dhan waxay dhacaan adigoon dareemin, waxaana laga yaabaa in ilbiriqsiyo gudahood ay ku dhacaan. Yaa qaata lacagta aad geliso SIM-kaarka? Lacagtaasi waxaa qaata shirkadda isgaarsiinta ee ku siisa adeegga. Shirkaddaasi waxay lacagtaasi ku bixisaa dhismaha iyo dayactirka tower-rada, kabidda fiilooyinka fiber optic-ga, korontada loogu shaqeynayo qalabka, iyo mishaaraadka shaqaalayaasha, dayactirka iyo amniga shirkadda. Laakiin maxaa dhacaya haddii akoonkaaga wax credit ah mise kaar uuna ku jirin? Marka aad riixdo badhanka koolka, shirkaddu marka hore waxay hubinaysaa akoonkaaga haddii uu leeyahay lacag ku filan amba uu jiro adeeg u oggolaanaya koolka. Haddii aysan jirin, shirkaddu ma oggolaanayso wicitaanka, waxaana laga yaabaa inaad maqasho fariin codeed amba cod kuu sheegaya inaysan kugu jirin wax lacag ah.
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin haddaa intaa nala soo gaadheen. Nala wadaaga wax xiga oo aad jeclaan lahaydeen inaan ka soo hadalno fiidiyoga xiga. Subscribe saar hadduu horey kugu saarneen, haddii uu kuu saarnaana sharaf iyo karaamo. Sidaas iyo nabadgelyo.